adduunyadu waxaa ugu xun qof aan aqli lahayn oo nololna aan aqoon dadnimo iyo walaalnimo diin kaa celisana lahayn dad kaa ceshana lahayn yah aqli kaa ceshtana lahayn adduunka ugu xun waxaasna waxaa keenaayo jaahilnimada dadka qaarkooda ay wataan war laba qof wey ay iskula socdaan iyo wey ay ku kala tagaan ilaaha xaq quraanka kariimka ku sheegay muslim iyo gaal qof ubadkiisa inay xayawaanka xataa yeelayn in ubadkiisa oo cileeyo mase oo bahdilo mase oo qadiyo ma fahanteen laakiin iyadoo taas jirto haddii iyadoo adoo og in lagu xumaynayo adoo og in la rabo in baad mase mustaqbalkaaga mase magacaaga in lagu dheeli rabo oo xumaato lagula rabo adigoo og in wax walbo bahdil lagugu suubinayo adigoo og in la rabo waxyaalo been laga abuuranayo yah war waxyaalo wax soconaa jiro weeyaa jiro sharciyaa jiro waxaa jiro kala dambaysaa jiro dunidaaneti wax walba waa la ogyahay taariikhdaa qoran wax walbo kumbiyuutarkaanay ku wada jiraan wax qof qarsoon ma jirto baadiile ma joogo hadda lama dhahayo wax walba way qoran yihiin wax walba way xisay caddeynaa taalo qof u bootay karta qof oo dhihi karto ilaa saas iyo saas ma dhici karto wax walba caddeena loo baahan yahay waxaana sharcigaa dadka kala saaro sharci aag dadka kala saaro inta dunida la joogo markii aakhirada tagana dee taas rabbiyaa ogo qof walbo xaqeeda u dhicinayo laakiin dunida rag baa jiro oo wax walba caddeyn iyo kala dambays iyo dowladnimo iyo da la isku tiriyo iyo wax walba kala dambaynayo marka qofka u malayso jaahilnimada kugu dambayso war aqoon yeelo wax baro waa lagaa horeeyaa yah 37 sano qurbaha la joogaa 37 sano qurbaha la joogaa ma fahantay yah marka dee anaga shalay wax imaaday iyo been iyo burugna oo sheekeen saaxiib waxaa rabta geedkaa joogto midaysa ka qaado meeshaa rabaana imaanaa meeshaa rabaana tagaa meeshaa rabaana maraa ma fahantay ana haddaa xumahay yah dadweynaha ay soo saaraya adaa haddaa xun tahayna dunida aa ku kashifayso adduunyo beel iyo aakhira beel iyo kugu dhicin adayna ku jirtaa walaale wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu